السلام عليكم ورحمة الله ولاله مeel baad idinka joogteen soo dhawaada mar labaad mar koowaad mar saddexaad mar afraad maanta fiidiyooga kuwa hore wuu ka duwan yahay marba cuntaa soo geliyaa laakiin uma maleynayo inaad taqaanin qofka aniga ahay ilaa qofka ka dambeeyo oo cuntada meesha la soo gelinayo so maanta fiidiyooga wuxuu ka hadlayaa shaqadaada ka shaqeynayo sidaa ku bilaabay intaa shaqadan bilaab ka hor maxaa qaban jiray aniga waxaan ka imaaday Soomaali ka imaaday anigoo 22 jir ah wadanka Sweden imaaday marka Sweden marka imaaday waxaan ka bilaabay luqadda oo Swedishka oo SCP si loo yaqaan wadanka laga yiraahdo SCP marka bartay kadib waxaan u gudbay inaan sii barto maxaa dugsi dhexe ila dugsi hoose dugsi dhexe inaan sii barto kadib waxaan dugsi dhexe dhiganayo waxaan bilaabay shaqadii meesha ka shaqeey jiray meesha waayeelada ka shaqeey jiray dhowr sano ka shaqeeyay intaan hooyo noqon istaxaro ilaahay siiyay inta hooyo noqon meesha ka shaqeey jiray waayeelada almost 10 years ka shaqeey jiray 10 sano ka shaqeynayay marka hooyo markaan noqday ilmahaygu isku dhow yihiin waxaan bilaabay inaan xaafad joogo ilmaha 5 sano xaafad joogo oo maamuladiga ahay ilaa maxaa la caruurta xaafadda la joogay so markaas waxaan bilaabay inaan macnaha sheeg cunto kala duwan aan kariyo wadamo kala duwan si maxaa la yiraahdaa wataqaana hooyo markaa ta waxaa rabtaa inaad cunto kala duwan aad siiso marka shaqada saas aa wado waxay samaysay gabadheeda meesha xanaanada waxay ka sheegtay waxay tiri ma doonayo cuntada xanaanada diida markii la weydiiyo waxay leedahay hooyada cunto macaan ka dhisto hooyada cuntadeeda sugaya soo cunto kale ma rabo soo dadka shaqaalihii ka shaqeynaya meesha xanaanada aa dhowr mar weydiiyay qadi jirta xaafadda maxaa ka dhisaa caruurtaada way diidaan cuntada xaafad meesha xanaanada meesha lagu ku sameyno way diideen maxaa sameeyaa cunto caadi sameeyaan war shaqada shaqadan maanta bilaabay ilmahayga hal erey ka sheegaan meesha xanaanada ilaahay ii kasay ina shaqa aan weligay allah ya umalayna inaan helayo inaan helo marka alxamdulillah hadii ilaahay albaabka ku furaayo xaqiisa waxba kama ahan war saasa shaqadan ku bilaabay hal erey ilmahayga meesha ka sheegaan soo shaqaali meesha ka shaqeeya xanaanada waxay ku dhaheen wadiitoy ma furatid Instagram ma furatid oo nala qaybsatid reseptiga xaafadda ku sameyso shaqama in noqonaysa umaleynayo may marka Instagram-ka habeen marka ilmaha seexiyay aan iska furtay qadiijas kitchen cuntadii ugu horeeyay aan geliyay oo ilaa hadda aan weydiiyay waxay cunto Soomaaliyeed bariis iyo hilib isku dhex karinayo bariis ku karis waa taqaani bariiska waxaa la weydiiyay si u karisay biyaha meeqa biyaha ku dartay xawaash maxaa waaye horta su'aal waxaa la weydiiyay tinta what was markaas ogaaday cuntadeena in suuqa looga baahan yahay markaas waxaa bilaabay inaan sabaayad sameeyo muufo sameeyo cambuulo sameeyo cuntada afrikaanka kala dhan si fiican u sameeyo saas horta hore haddana luuqa suuqa daarunta ka suuqa waxa soo galnaa anigu cuntada afrikaan si fiican loo qoonin suuqa aniga soo galay soo marka waxa aniga maanta alxamdulillah maxaa la yiraahdaa haddana yara kor ii sii qaaday waxa suuqa ku jirin awate soo cunto Soomaalida ah bariis qaleel ah heesana ariga naga joojiya bariiska waxa waa maanta alxamdulillah ilaahay albaab igu furo waay marka saas baa suuqa ku soo galay soo markii bariiska sameeyay sabaayada sameeyay muufada sameeyay asoo baastada wixii kala duwan kalluunka male waxa isku dayay inaa maadaaba chance-ka helay xooga saaro saas marka waday waxaa gala tartan oo lagu tartamayo oo sanadkan Sweden lagu qabto sanad walba la qaban jiray hadda laakiin waa joojiyeen marka lagu tartamayo qof walba cuntadeeda ay ku tartamaysaa soo tartankaas galay dadkii macnaha 12 qofood fiinal ku galnay waxa ahaay qofka ugu horeysay 2500 oo dhibco qofka ugu xiga aan ka sareeyay markaas waxay dhaheen dadka oo meesha tartanka soo qabqaabiyay la soo aasaasan waxay dhaheen qofkan waxay dhibcaha u heshay inay maxaa la yiraahdaa qalad inay muslim tahay inay madow tahay inay Soomaali tahay aniga saas uma aan gelin tartanka waxa u galay cuntada Soomaali iyo cuntada Afrikaanka kaliya ina meesha Soomaaliga qorsheygu ahay saas markay dhacday waxay sameeyeen tartankii jooji waxay dhaheen hadda kooy soo bilaabeena soo marka wixii qof walba dhibcihiisa oo tirtireena markaas waa ka baxay marka waxaan ku dhahay saas anigu ma soo gelin hadda saas tahay waa ka haraya tartanka marka ka haray Sweden dhan waa isla kaceen
waa discriminating waaye maxaa la rabaa waa cusriyeel san waaye marka waa lagu xanaaqay saasaa marka horta Sweden dhan laga bartay hal habeen hooyo yar ilmeeda xanaano kasoo qaado xanaanada geeso cunto karsata ahaa jire hal habeen waxaa bilaabatay jaraa'idka inuu la soo xiriiro raadiyaanka la soo xiriiro tv-ga la soo xiriiro hal habeen nolosha isbedeshay you can imagine hal habeen waxaan noqday qof oo maxaa la yiraahdaa famous ah soo marka alxamdulillah waa aad iyo aad u adkeed adigoo maxaa la adduunka la socon adoo branchiga la socon aad soo dhex gasho hal mar maxaa la yiraahdaa adana markii inta hal habeen waxaa helay 40 qof falir maxaa la yiraahdaa 40 qof hal habeen soo raacad soo marka inta qof marka hal habeen hesho waxa waaye brashku badanaya wana sawir fiican soo saartaa wana video fiican soo saartaa waa ina maxaa la yiraahdaa dadka kale kula tartamaya ama la soo istaagtaa horta it wasn't easy actually marka alxamdulillah saas markay dhacdo marka waxaa ila soo xiriiray kuwa buugta shirkadaha buugta soo saaro hal mar waxaa ila soo xiriirtay 3 kala duwan shirkado oo raba buugga cunto karinta inay ii soo saaraan soo marka waxaan noqday awood ay yeeshay ina macnaha ina choice ay yeeshay ina iraado kuwan la shaqeynaa kuwan lama shaqeynayo kuwan aniga marka choice iska leh qofka raba la shaqeynayo marka ogaada ilaahay alxamdulillah haddii ilaahay wax ku siinayo qofka ha istaagta kala mara ayaga maxaan yeeshay kuwa hadda cusriyaanti ugu cusriyeeyay waxay ula jeedeen ilaahay baa og aniga macnaha qofka qalbigooda anaga ma aqrisan karno waxay ula jeedeen aniga ma ogi laakiin say soo qoreen iyo say macnaha adduunka dhan arkeen waxay cusrinima loo arkayay laakiin waxyaalo waxaa jira waxaa la yiri wax shar ku ah oo qeyr ku noqonayo waxa adiga qeyr u malayso shar ku ah jira leeyahay marka aniga waxay igu sameeyeen aniga qeyr bay noqotay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax ka weyn oo ka fiican igu bedel marka saas waxa ku helay buugta cunto karinta saas contract ku helay hadda 2 buuga soo saaray insha Allah ka badan waa imaan doontaa marka saas shaqadan ku bilaabo hal eray oo ilmahayga dhaheen waxay ii sameysay waxa weligay Allah u maleynayna buugayga maanta Sweden meel walba oo buug loo iibiyo yaala oo magacii ku qoran yahay sawirkii ku sawiran yahay Sweden kaliya xataa maahan hadda buugayga labaad Denmark iibsatay oo soo Denmark wadanka Danishka loo bedelay oo xataa Sweden kaliya ma yaala xataa Danishka yaala Denmark yaala asdiis huge waxa ku talo wallahi billahi ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iskale alxamdulillah rabbil alamin waa mahad ilaahay u sugnaatay marka ana shaqadan sana ku bilaabay maanta macnaha 3 sano ku dhawaad hadda macnaha shaqadan hadda maxaan ku shaqeynayaa full time ku shaqeynayaa insha Allah next time waxaan tustoonaa saas suurada uu qaado saa fiidiyoosha u duubo hadda rabtiin hoos igu soo qora waxa ay hooyo kaligeed ah by the way hadda single tahay hay isoo qor waxaan insha Allah fiidiyoosha waxaan soo saari doonaa maxaa la yiraahdaa inaan isdiragelino hooyo kaligeed ahay shirkada leeyahay maxaa la waxba gacanteeda inaan samaysto marka ishaga hooyo walba oo kaligeed oo dhahaysa ma awoodo ma aqaano sama ma ogi waxaan rabaa insha Allah in arigaas joojisin in isku tashatiin in dhaxda xiratiin ama hooyo kaliga ah ama la wala joogo mar walba waxa fiican in isku tashato adiga macnaha ishaag aan qof ku tashanin taasna waa waar kaligan waa iga tala ku leeyahay hadda hooyo tahay iyo hadda naag tahay dumarkii rag la socdo xanaaqi doona kulay maanta laakiin it's okay hadda dumar tahay ama hal lagu qamiya lagu qabinay isku tasho waxa gacantaada ku jiro waxaan haysan baa la hooyadaaba ha haysay heebs bay rabaan alla qaladna dhahoya mahmaad hooyada digital soo xasuustay marka waxa gacantaada ku jira ku tashanaysa soo dumar hadda tahay ama hooyaha ama ahaanin isku tasho qof kale ha ku tashanin ogaaw marka adiga xagga dhaqaalaha laga qabsado oo dhaqaale adiga aan isku filneen waa markii laga raayo waa markii laga raynayo soo waxa ku dhihi lahay dumar hadda tahay hooyo Soomaali tahay caruur Ilaahay ku siiyay alla caruur wili ay Ilaahay ku siinin isku tasho
waxa taas u leeyahay waa waxa experience u leeyahay oo aniga soo maray aniga hadda 3 sano ka hor aan kala tagnay yarkaas ay carruurtu dhalay waa go'aan aniga gaaray marka insha Allah fiidooshka soo socdana insha Allah waxaan tusaa in sheeg waxaan tustoona saa cuntada u sameeyo teeda kale gurigeeda aad joog wax kasta samaysan kartaa waxay kugu xiran tahay adiga ina maxaa tiraahdaa maxaa ku fiicanahay maxaa qabsan karaa maxaa raba ina sameeyo soo marka waxaan dhiirahay hooyooyinka igu xiran ina isku macnaha income samaysteen adinkoo xaafadiina joogo haddii cunto karinta tahay insha Allah next video soo geli waxaan soo geli doonaa saa u duubo waxyaalaha u baahan tahay ma u baahnid hadda laba kaamiro qaali ah haysta laakiin kaamiro ma u baahnid ana intusi doona insha Allah hadda Soomaali cunto wada ka taqaana runta hadda ka hadalno soo marka insha Allah waxaan next time intusi doona iyo maxaa la yiraahdaa iyo su'aalaha qabtiin xataa hoos ugu soo qara hadda artin waxa macnaha ina sharaxo waxa darti business ina sameeyeen maxaa macnaha sheeg marba insha Allah ila soo xiriira hoos ugu soo qora wixii oo tabarteyda oo aniga aqaano waa insha Allah waa ina wadaagi doona marka saas ay ugu taqaaniin qofka saas waa qofka aniga ahay saas shaqada ku bilaabay saas arrinteeda tahay marka insha Allah videoga insha Allah subscribe walaalahay iyo subscribe macnaha dadka la macnaha share macnaha walaalahay dadka taqaan u sii sheega insha Allah next time waxaan tusi doonaa sidii aan u duubo iyo waxyaalaha u baahan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.